nin la yiraahdo ilka casaqays oo dii abgal igu adeen baas ka dhalay waa labada ugu doqonsan adduunka wuxuu sameeyay heesta Carays Ciise Kaarshe ee ahayd hooyadu waa lama huraan runta minkii kala wax lahayd buu wuxuu ka dhigay fuck you qurun buu ka dhigay wuu kaga ciyaaray hadduu soo dhigay hadda hadduu soo dhigay صح جراء marka ninkaas heesta hooyada bedelay waxa uu rabana waa farq weey sida dadka anu magaciisa qays ah baan qoray waxa ka dhigtay yaadi baan tuuraysaa qas baa soo baxay kala qabo igu qabo qaska kuma bogan iba barin waa bash marka waa kala qabo igu qabo qaska weey kala qabo igu qabo qaska ilka casaqays ma waa qas sida dadka fuck you baan ugu leenahay waxa weey uu cadeystay hadeer wax uu doon iska sheegaya tan kala day anu waxa isku day heesta uu bedelayo Carays Ciise waa inaa bedel isku day waxa ka dhigtay tixdaan aan marinayo Carayskii mootana muddo hore marxuumayba maanta anigoo hurda saar buu iimeeriyo manaan buu iigu yimid runta minkii kala waxaan lahaa wuxuu yiri macallinkay mandhow hooyada macaan markuu ay ku soo xamaashayo makaankay kugu sido fool bay kula soo martay amaan bay mudan tahay dadkuba hawada maqle u tirimaan sooyin wacan runta minkii kala waxaan lahaa hooyada wax qaaliya hooyo waa lama huraan Carays Ciise ani waa ila hadlay rii wala hadlay wuxuu yiri mandhow hooyada macaan mar way ku soo xamaasho makaankay kugu sido fool bay kula soo martay aba amaan bay mudan tahay dadkuba hawada maqle u tirimaan sooyin wacan waa aniga tirinayade hooyo macaan بريان دم واحد شرا nin la abaan dhiirana yurde abaan dhiirana marka maqlaba anigu hadaan cunto dul fadhiyo ka carraa ciyalka ka naxa islaanteed ilmihiisa soo ridi gaadhay marka abaan dhiiris aragtay kilibkii isagoo xagaag isagoo ka yaba islaanteed uur la aragtay ilmihiisa soo ridi gaadhay ana inta indhihii qabtay baan kaxeeyo oo qolka geliyay oo dhinaheed ninkan daawanayno nin ma aha ما قرأت وحوي ولين راجل واو دحيا waxa leeyahay inta waxa lagu xamanay inuu dawladda federaalka iyo odogaas inuu nolay dadka inuu aflagaaday waa daawatay dimada daawata kilibka waan daawaday nabad iyo nolol groupka isku xirnaa ee Soomaaliyeed nabadeeda ka shaqeynayay iyo barwaaqadeeda ayuu galay marka way iska muuqatay xad intuu raacay ninkaas anaga ummadayda ma noqon falays minna abwaan dhiirane shaqadaadi hore doonaysa sayla tahay abwaan dhiirane soo macallin ah baan aqaan boos ku aqaan soo macallinimada ku helay ma taqaan iskoolada inta tagu ciyaalka yarka gabdhaha yiraahdo kaalay tus buugaaga say buuga tusaysaa suulay bacda yarka waa maxay anaga bacwa weyn ku qorina noo imo bacwa weyn baan ku qorina wada sidoo macallinimo ku qaatay abwaan dhiirane macallimada ku noqolada abwaan dhiirane waxa la yiraahdaa xagaag iga leeyahay sax macallimada ku noqotay salaad qaadanayo taas ku aantahay way ku leeyahay adag qalanayo caleemo qoyan caleemo qoyan musuqmaasuq adiga wala qayay abwaan dhiirane waxa ku leeyahay waa billaah dad waxa ka harin ka bax filka ku jirtay waa digniin nabad iyo nolol baa ku digaysa dhaka weyne meeshan macnaha waa la saystaa dhagaha xagaag ka saari mayso waa la saystaa almiidaan waasa fardal isugu joogo maxaa la isaga faanin sax dadka ka soo horjeeda nabad iyo nolol dadka dhamaantood ka soo horjeeda nabad iyo nolol waxaan ugu baaqayaa inay soo rujoocaan isdhiiba si shabaab isdhiiba hadii kale wallahi billahi meeshiinad ku tageynaa farmaajo ha noolaado khayr ha noolaado nabad iyo nolol ha noolaato madaxweynaha Buntland Dani ha noolaado Axmed Karaash ha noolaado salaamina kulli madaxweynihii hore Mareykanka 93 ku soo haystay buushka hadda jira aabihii buu ahaa baydhabo soo booqdo Soomaaliya ku taal ma oga marka baydhabo Ingiriis baa looga hadlaa sax dadku waxay qabaan afka mayga u qabaan way dhaaftay markuu magaalada saa soo galay baydhabo diyaarad ka soo degay baa dadkii oo dhan weelal qaateen ila Soomaaliya waa taqaano haday arkaan nin cadaan ah qaxooti bay isu qorayaan sax waxay dheeyihiin weelka buuxi sax welcome buuhi be ka wada isna wuxuu qabaa welcome buush in leeyahay buush soo dhawow in leeyahay de buush sidii waa laga diirtay waxa haystay waraaqa laga saxeexday Soomaaliya waa taqaniga hadda welcome urumxaa dalkan Ingiriis looga hadlayo habar buu ku yiri how are you I am fine buu rabay mogta certified fightana laba fayn bay u dhigtay waa fiicanahay ma fiicantiin how are you fine fightana wiil yar baa kiish la soo orday yiri I shall be thief tuug baan noqonayaa weey laakiin soo wuxuu ka wada ilmuhu aniga shall be thief maaha waa tii Ingiriiskeed mogta laakiin waa hooyo shall be waa kala bixi thiefna waa kiishka hooyo kiishka kala furbu ka wada kowdi aanihi waa unig ka daatay si I wanted dadati hooyo aanihi waa daateen ninka cadaanka wuxuu yiri oo wiilkan muxuu dhimasho ku fulayaa
ay anigu wanti waxaan doonayaa dheedad dhimasho hadda ay hooyoy wantina waa caanihii dheedadtina way daateen wey marka ingiriis badan baa saaka Soomaaliya macallinkii raxan weyn wax ku qora ingiriisku wuxuu ku barayaa waan kuri kii Stockholm lagu hadlayay oo halka laga hadlayay buu ku barayaa ha meel cosmetics maanta soo galay hees baa ka daarnayd waxa la ismariyo oo mataqaanaa herbalka ah baa meesha laga helaa kareemyada kaysa bushaaro kale markaas waxa bariidaduba waa lacag bariidaduba waa sade ruux bukaanka kugu nacay adoo baahan ka tagay samo kuma banaane nin isaaqaasa ku heesay ana waan garab dhigaya moogta diyaanaduba waa lacag ruux madowga kugu nacay adoo fool xun ka tagay aroosuma banaane kaanu beer cadaade waliga beer cadow صاحب اساس لو توال فعلين اتيس wuxuu yiri abwan cilmi daadse feeda bidix faaliya qaranka xabada kaga jirto yiri feeda bidix kaase ha waa maqlay wuxuu yiri feeda bidix cilmi daadse kaga jirto yiri xabad sida dadku uu burqanaya yiri uu burqanaya macnaha xabada soo riixaysu leeyahay oo wax reexamar aan jirin waliga xabada dhex yaala weey waa nin bakaaraha iyo degan iyo xamar weyne fi degan oo marka korontada laga jarayo marna leeyahay biyo gelinta ka jara marna 12 habiyo ku rida oo yala xubo soo tuur leeyahay dhibaato qabanka ilaa ku maciin faaliya qaranku waa bilaa waajin weey faaliya qaranku wuxuu jecel yahay waa nin wadani wuxuu jecel yahay Soomaaliya tooso isku tiirsada hadba kiina taag daranay turunturay weligin marka faaliya qaranku waxa leeyahay saaxiib heesta 6 saac habeen wixii ka dambeeyay lama daaro dadku waa hurdaa dadka hurdaa Soomaalida ah ha toosin Soomaaliya toos waa inta fikira faaliyaha qaranka iyo cilmi daashadee tahriibaan Soomaali harimayso laakiin waan ma tahriibeynaba dalkan ka helna faaliyaha qaranka tigis hadii tahriiban Soomaali ma hariso labada muwaadiniin anu gabadhan la hayo mataqaan heesaheeda qurux badina oo aan la waa ruux ma ku marqaama waa gabadh liyakiin jaama laakiin deeqa afro waa qofti tiri xalaal aan la gelin kor isaara hayeen bay soo wacdayo igu soo celi baan ku yiri waxaan ku xawishay ninka xabaalaha qoda markaas ay tiri waa saliimeedku ma qami tir say naxdintay naxday baan ku yiri saddex cisho ma soo wicin oo markii asana saleed ay yaan la aasin ee geed halaysaar sababta aad ka dambeeyay inaad ku xawlo ninka xabaalaha qotaan ku xawishay lambarkaygi maxay soo wacdaa guri fiican diiday mid fiican saadiq laga guursaday nin dambe heli meesha fiican ka mid ka fiican aad iyo siyaasad ma galo qabiil ma ayno deeqa afro ma dhageysano gaar islaamina